السلام عليكم ورحمة الله. maanta qabowka adduunka jira wallah. Rooba da'ay barafkiya roob ku da'ay markaas barafkii dhan dhalaalay. Markaas waxaa dhacay qabow lagu dhintay. Maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa low carbka iyo soonka la soomayo intermittent fastingka kee waa wanaagsan marka diet ka sameynaysa. Marka waxaa ka hadlaynaa horta dhawaanaha videoda la soo dhaafo waxaa ka hadlaya maxaa la dhahaa intermittent fastingka. Low carbna mar hore sharxay ka hadlay video badan ka sameeyay. Low carb sa ognahay waxaa waaye carbohydrate ka yareynaysaa ilaa 100 gram wixii ka hooseeya geynaysaa. Intermittent fastingkana waxaa waaye waa soonkaasoo laga go'ayo cunada waqti gooni ah. Cuntada iska dhaafaysaa adiga waqtiga jeceshahay 16 saacadood ilaa 18 saacadood ay cunto ka go'aysaa maalinkii, laakiin waqtigaas sooman tahay waxaa lagu ogol yahay wax la cabi karo calorie la'aan dhan. Waxaa filayaa inaad fahamtay mar kale. Kee waa wanaagsan marka in hilibka la iskaga rido labadooda wanaagsan. Horta low carb weligiisa la sameyn jiray. Dadkii hore hataa Arnold Schwarzenegger dadkaas oo waxay sameyn jireen low carb markay diet rabaan inay sameeyaan. Low carb waxaa wax maxaa la weligiis jiri laakiin intermittent fastingka dhawaanahan ayaa la bilaabay 2019 meelahaas mar dhow ayuu caan noqday, laakiin waxaa la bilaabay meel 99 meelahaas. Low carb kuligiis oo jiri laakiin intermittent fastingka dad ayuu wanaagsan yahay oo low carb aan sameyn. Dad waxay sameeyaan kaliya intermittent fasting soonkaas kaliya ayay sameeyaan, carbohydrate-koodana meel dhexe ay ka dhigtaan. Dadna way isku dhaxwadaan. Dadna ma aaminsano intermittent fasting sababtoo waxay ku leeyihiin intaas saacadood cunto ma ka go'naan kari. Dad gaajo u adkeysan karin waaye ama jirkooda oo baran inay cuntada ka go'aan. Marka ani ahaanteyda labada waa tijaabiyay, khaasatan intermittent fasting ayaa ka jecelahay sababtoo low carb marka sameynaysid asbuucyada ugu horeeya hadda waqti ka maqnaatid oo ku soo laabatid asbuucyada ugu horeeya waxaa dareemay caajis, madax xanuun, maxaa la dhahaa saxarada inay kugu adkaato waxaas asbuuc ugu horeysa ilaa 2 asbuuc. Ma jecli mar kasta, laakiin haddana waa sameeyaa sababtoo ah low carb ayaa ka fudud haddii hilib riis la dhahaa sababtoo ah carbohydrate marka yariis mar hore sheegay carbohydrate marka jirkeena ka goyno ama yareeno insulinka dhan waxaa waaye hoos u dhacaya, insulinkana hoos ayuu aadaya. Marka carbohydrate marka yariis qasab hilib uu ka dhacaya, laakiin dibka jira wuxuu yahay weliga carbohydrate la'aan diet ma ku jiri kartaa waa may maalin un waa ku soo laabanaysaa. Marka ku soo laabad kadib insulinkaaga kor uu kacaya. Marka waxaa wanaagsan ani ahaanteyda kuula talan lahaa hadda wax sameynaysa inaad isku dhex wadid. Maalinta hadda tusaale ahaan isbuuci 7 maalin waaye. Hal maalin cheat meal iska dhigo ama cheat day waxa aad iska dhigo 6 maalin ku soo hartay. 3 maalin waxaa sameeysaa soonka, 3 maalin low carb samee. Tusaale ahaan waxaan iri Isniinta maanta oo kale already aan hadda soomanahay, hadda gym ku socdaa. wax ma cunin ilaa hadda biyo kafee qaraar bisaacabe waa almost 8 saac. waxaas maanta oo kale waa soomanahay ilaa maxaa la dhahaa waqtiga cuntada hadda iska goyna cuntada bilaaw waxaa 4 meelahaas 4 cuntada ay bilaabaan 4 markii la gaaro carbohydrate normal ah cunaya adi ilaa 150 ilaa 200 gram ku dhawaad. micni ma badno mana yar dhexdhexaad waaye. beriyo kale marka waxa sameynaya low carb carbohydrate oo idil ma taabanay biri haddii ugu badato 50 gram ama meelahaas cunaa. maalinka ku xigto sidii ku soo laabanaya intermittent fasting ka sameynaa, maalinta ku xigto low carb sameynaa, maalinta ku xigto waxa sameynaya saas ku wadaa marka 6 maalin. maalinta toddobaad markii la gaaro kale ugu dambeeyay axadoo kale waxa sameynaya maxaa la dhahaa carb wax la dhahaa ama carb backload wax walba sida u taqaanid. kaas waxaa waaye waxaa cunaysaa carbohydrate fara badan jirkaaga. carbohydrate badan ayaa cunaysaa, proteinkaaga meeshii laga rabaa ka dhigaysaa, laakiin fat ma cunaysid, fat yar ayaa cunaysaa. ognahay low carb markaa sameynaysid carbohydrate ayaa yareynaysaa, fat badan ayaa cunaysaa. maalinta axadda soonna ma sameynaysid, carbohydrate badan oo cunaysaa jirkaaga si jirka full ugu dhigtid mar labaad. wiiga soo socdo haddana diet diyaar ugu noqdo. sidaas daraadeed waxaa aragtay dadka markay maxaa la dhahaa 2 isbuuc diet ku jiraan way ku caajisaan. sababta maxaa keenaysa maalin ay carbohydrate badan cunayaan ama maalin cuntada jeceliin cunayaan ma ku jirto. haddii aad diet sameynaysid tusaale ahaan 3 bil camal diet ku qorshaysan oo hal maalin cheat meal uusan ku 3daas bilood toos u sameysid
so markasta waxaa muhiim hal maalin cheat meal camalnaa samaysatid cheat day samaysatid oo cuntada jecesha aa cuntid next week markaa bilaabi rabtid oo kale haddana sida moraal usu yeelatid aadan cuntadii iyo waxaas craving waxaas kuu qabanin marka waxaa kugu talinaa 3 maalin soon 3 maalin maxaa la carbohydrate-ka iska yareeyo maalinta toddobaadna carbohydrate-ka badi maxaa la dhahaa protein-ka meel dhexe ku dhaaf fat-kana iska yareeyo so waxaa filayaa inaad kala fahamtay aan kuu sharxay channel-ka haddaa ku cusubtahay waxaa la sameeyaa waa taqaanaa subscribe like asxaabta gaarsi